been buu sheegaya baatil iyo zuur buu ku waramaya markaasay aafaaqda oo dhan bay gaaraysaa hal mar baa waxa dhageysanaya khalaa'iqan xasri laha goobaha aadamuhu ku xidhiidho iyo mawaaqiicdan tawaasulka dadku ay ku xidhiidhaan ayuu ku qorayaa ama cod ahaan u gelinaya WhatsApp ku gelinaya Facebook gelinaya Fiber ku gelinaya ayugu ku gelinaya waxyaalaha bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaas hal mar waxa taalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaari kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaas u gaarsiisay ittaqillaha ya rajul ilaahay ka baq naftaada u baq aakhiradaada u baq beentan aad sii daynayso ee khalaa'iqda ku sii daynayso cuquubadeedu waa taa waa qabrigay ku ciqaaban yihiin dadka aan tilmaamayno aakhira la isma gaadhin ilaahay hortiisana weli lama tagin naartii weynayd iyo xaalkeeduna waa laaban yahay warkan furan iyo xubnahan furan iyo dhaqankan furan ee aan xad lahayn ee alla ka cabsigu ku jirin waa wax kugu soo noqon doona aad uga xisaabta nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mucaad ibn jabal baa wuxuu weydiiyey rasuul ilaahayow carabka naga waxa ka soo baxayeen ku hadlayna ma naloo qabanaya waxan ma laysaga daba iimaan doona markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam mucaado hooyada ku weydaye dadka naarta ma waxa ku rido madax ama daba ugu tuuray ilaa wixii carabku shaqaystay mooyee wixii carabku gooyay iyo beertuu beeray umba dadka naarta ku daadisa rasuulku wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markii la weydiiyay maxaa u badan oo dadka naarta geeya rasuulku wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi afka iyo carabka wax ka soo fulay iyo xubinka taranku wuxuu sameeyay ayaa u badan wax dadka naarta geliya rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inta markaad maqasho si alla saad ka badin weydayeen haddaad doonayso xisaab aadan ka bixi karin aakhira inaad ugu tagtana waad fasaxan tahay waxaad ka badin weydayeen haddaad doonayso inaad xisaab xadidan iyo badbaado aad aakhira ugu tagtana carabkaaga iyo xubnahaada xakame zuurka iyo beenta iyo baatilkana iska ilaali sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ma'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله